بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaa maanta farxadna oo aanu halkan isugu nimi ilaahay baa mahad leh marka ugu horeysa waxaanu halkan maanta ku soo dhaweynaynaa oo aragtaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaanu xisbigii baanu ka koobanahay salaadiintii wasiiradii garabkii dhalinyarada dhammaan waxaanu halkan u taaganay inaanu maanta soo dhaweyno professorka soo dhawow dalkaagii hooyo ku soo dhawow xisbigaagii ku soo dhawow hadalka intiisa badan way noo dambaysaa shirar badan baanu geli doonaa intaasaanu maanta halkan idinku yaadhnay imakana waxaan leeyahay salaamu calaykum waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirka professorka Axmed Ismaaciil Samatar oo aanu soo dhaweynayno iyo salaadiinta gudoomiyaha xisbiga gudoomiyaha labaad xisbiga iyo baahdiina saxaafadda iyo inta kale marti sharafta kalaba dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waxaanu soo dhaweynaa professorka oo muddo badan baan naga maqnaa ayaan ku soo dhaweynaa Hargeysa professor waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalkaagii xisbigaagii dadkaagii intaba ku soo dhawow wax badan oran mayno waa madal soo dhaweyneed waxaan aad baan ugu faraxsanahay inaad soo laabato oo barnaamijyadii xisbiga iyo dawladda iyo shaqadaadiiba aad hore ka bilaabaysa hadii la yiraahdo wax fara badan oo aad xisbiga la wado iyo dawladaba hadii la yiraahdo waxaan leenahay soo dhawow الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan dadka meesha jooga gudoomiye ku-xigeenada hawlwadeennada xisbiga wasiirada iyo bahda saxaafadda waxaan halkan u joognaa maanta oo darkasiin inaanu soo dhaweyno Professor Axmed Ismaaciil Samatar aqoonyahanka waxaan leenahay professorka soo dhaweyn maanta kuma soo dhaweynno waayo dalkaagii baa timid oo dhulkaagii baa timid oo dadkaagii baa u timid laakiin waxaanu leenahay mar labaad adoo soo noqday ayaanu ku leenahay dalkii aad horeba u joogtay ku soo dhawow muddo yar baad naga maqnayd muddada aad naga maqnaydna kolleyba waxaan filanaa in hawlo dan u ah dalka iyo dadkaba inaad ku maqnayd iyo xisbigaba dadweynahaagii annagoo ku hadlana magacii madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku leenahay professor soo dhawow kaliya laabaan kugu soo dhaweynaynaa wadanku uu ku baahnaa sidii aad walba u garatay markii hore inaad wadankaaga ku soo noqotid oo aad waliba kala qayb qaadatid siyaasadii Soomaaliland oo xisbi xaakimkii aad ku biirtay ayaanu mar labaad iyo mar saddexaad baa ku soo dhawow waxtarkaaga iyo waxqabadkaaga maanta waan diyaar baan u nahay waxaan ku leenahay soo dhawow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayba mahadle waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan halkan ka salaamo dadka reer Soomaaliland iyaga wax walba ka mudan dadka reer Soomaaliland gees ilaa gees jamhuuriyadda dadka ku nool in halkan salaan uga diro ayaan horta doonayaa inaan ku bilaabo mar labaad waxaan ogahay abaaro foolxuni inay wadanka haystaan oo dhul badan ay aad iyo aad biyuhu ugu yar yihiin marka halkaan waxaan ilaahay u wareynaa inuu roobkuna soo degdego ummadan Soomaalilandna inay ka warhayso dadka kolbaalkii ugu liidata in laga warhayo waxa weeye wax laga maarmaana waxaan markaa u dirayaa salaan dheeraada iyo si gooniya aan u salaamayaa dadka reer Soomaaliland ee waqtigan abaarta xumi ay hayso anigu ma iloobin dadkii soo dhaweeyay dhulka abaaruhu ka dhaceen markaan marayay maan iloobin maayo waligay madaxda xisbiga ee halkan igu soo dhaweysay wasiirada suldaankaygii oo halkan jooga dhalinyaradii xisbiga madaxdoodii dadkii xisbiga gudihiisa aan ka wada shaqeynay bishii July and June markaan halkan joogay oo qaarkood halkan ay joogaan xisbiga kulmiyad dadka halkan maanta airportka yimid iyagana inaan salaamo yar iyo weyn iyagana wasalaam ayaan doonayaa doodaha iyo shaqada la qabanaya iyo barnaamijyadu way noo dambeyn doonaan sida madaxda xisbigu ay u sheegeen maantase waxa weeyaan mahadnaq reer Soomaaliland ha noolaadaan ilaahay Soomaaliland ha la jiro innagana reer Soomaaliland oo dhan hadaynu nahay hawsha wadan ma dhamaatay taasi way noo taala marka dib baynu isku wareysan doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh